runtii waa maalin farxad leh oo ay tahay intaan oo qof oo mas-uuliyiin ah oo reer koonfur galbeed ah ay isugu yimaadeen shirkan dib u heshiisiinta ah oo looga hadlayo maslaxada ummadda reer koonfur galbeed iyo horumarkeeda iyo heshiiskeeda iyo midnimadeeda iyo siday hore ugu socon lahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana maalin taariikhi ah maanta runtii maalmaha kale way ka duwan tahay waxaana soo dhaweyneynaa wafuudda madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafuudda kala duwan ee noo timid oo u timid arrintan inay ka midho dhaliyaan iyo cid kasta oo munaasabadan uga shaqaynaysa sida ugu fiican oo ugu habboon oo maanta koonfur galbeed oo mid ah oo wada socoto oo wax wada leh oo heshiis lagu heli lahaa aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada walaaltinimo ku soo dhawaada nabad ku soo dhawaada wada hadal ku soo dhawaada waa la kala aragti duwanaan karaa waxbaa la isku qabsan karaa waxbaa la isweydiin karaa nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira marka ha la wada fadhiisto meeshuu jidka rasmiga jira ha laga wada hadlo sidii hore loo sheegay aniga 30 sano oo burburka dowladda uu jiray markay ugu badnayd waxaan tagay Nairobi dadka diaspora ma ahayn dalkan joogay wixii mushkilad dalkan ka dhacday oo la soo maray oo dhan goobjoog aan u ahaa cimri fiican iyo waqti fiican oo la joogana waa soo qaadanay maanta oo 5 kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirno mar labaad inaan dhibaato kale iyo meel aan loo qaxa aan lahayn qax kale la galo raalli kama nihin qof kasta oo mas'uul ah wixii uu rabo kii xil haayo kaan xil haynin waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay amniga maxaa yeelay waxa aan joogno iyo meesha aan hayno waa baydhabo geeskaas iyo geeskaas isku weerkeeda 10 kilomitir waaye dadkii sidii hadda hore uu sheegay guddoomiyaha ka soo qaxay deegaanada kale yaa 750 ah dadka magaalada caadiga u deganna waa 500 waa magaalada labaad ee Soomaaliya ugu population-ka badan baydhabo magaalada Muqdisho bas ka dad badan dadkaas ayaga ah waxay rabaan oo irsaaqdooda ku jirta Ilaahay baa irsaaqda bixiyo nabad way waxay haystaan waxay cunayaan waxay ku naaloonayaan nabadaas oo ah intaan yartoo lagu jiro lagu kooban yahay ah intaan haddii laga baxo nin maanta 5 kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tagi karo oo soo aasi karo ama aas ka qayb gali karo ma jiro aabihiis ninkii uu tuulada lagu dhigan ku dhintay ma tagi karo waxa marka la isku haysto waxa waaye laba nin oo timo aan lahayn oo shalay isku dagaalayso ninkii la siiyo wuxuu ku shalaysta male kii la siiyo waa iska haysanaa leeloogi wuxuu ku shalaysta male marka aan timo helno si ninkii shalladaas helo uu wuxuu ku shalaysta uu helo timaha aan helayno waxaa waaye dalkii iyo dadkii iyo deegaankii koonfur galbeed mas-uuliyadda naga saaran aan xoogga saarno sidii dal iyo dad aan xukunno lagu soo celin lahaa qof walbana mas-uuliyadda ka saaran soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada walaaltinimo ku soo dhawaada wada hadal ku soo dhawaada geedkan hoostiisa gogosha taalla ku soo dhawaada waxaan si gooda ugu mahad celinayaa runtii guddoomiyaha baarlamaanka oo arrintan si mas-uuliyad iyo odaytinimo ku jirta isugu xilqaamay waqti dheer geliyey meel badan u soo maray u dhafray shaqadiisa uga soo tegay ujeedkiisana ay tahay koonfur galbeed oo heshiisa horeyna u socoto mudane guddoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay sidaasoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo asagana nagu taageeray gacanna nagu siiyey naguna garab istaagay mudane madaxweyne aad iyo aad u mahadsan tahay